الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaynu eegaynaa qaar ka mid ah dhibaatooyinka lagala kulmo AutoCAD-ka ama challenges-ka lagala kulmo. Ribbon-kan ugu horreysana sida looga soo baxo. Sidoo kale waxaynu eegaynaa sida ribbon-ka markaad rabto inaad iska qarisid aad u qarinaysid. Halkan baynu ku qoraynaa ribbon, ku dhufsanaynaa deetana ribbon baynu ku qoraynaa. Ribbon markaynu ku qorno tamaynu ku dooranaa ribbon kaliya taa. Inuu ku dhufano wuu inoo soo baxaya ribbon-keeni. Hadaynu u baahannahay inaynu iska qarinana waxaan ku qoranaynaa ribbon, markaan ku qorno ayaynu ku dooranayna ribbon close. waxa inoogu xiga ee inaga qarsoon waxa weeye dial box-keena. tusaale ahaan haddaynu u baahno inaynu odhano open inoo furmi maayo, haddaynu u baahno inaynu odhano new inoo furmi maayo, oo wax kaleba inoo soo saaraya. markaa sida aynu u xalin lahayn ayaynu eegaynaa. markaa sidee baynu ula soo baxaynaa? haddaynu rabno inaynu la soo baxno halkan baynu ku qoraynaa fill markaan ku qornaa inoo soo baxdo ayaan waxaan kusii qoraynaa baynu ku qoraynaa, enter baynu odhanaynaa. haddaba dib baynu ugu noqonaynaa, markaynu new odhano caadi isugu kan furayaa. sidoo kale haddaynu odhano open caadi isugu kan furayaa. faylkan rabno inaynu furanaynaa. marka intaynu ku gudubno waxaa inoo taalla markaan u baahdo inaan iska xidho saad u xidhaysaa. waxaad qoraysaa haddana sidii oo kale fill markaad qortid baad ku dhufanaysaa 0 baad gelinaysaa. oo shaqayn maayo iminka la soo baxnaa baa imanaysaa. halkan baynu ku qoranaynaa UCS iconkan baynu ku dhufanaynaa. waxaan ku dhufano on baynu odhanaynaa. markaad u baahan tahay UCS intaad qortid icon intaad qortid ayuunbaad off odhanaysaa. inooma yaalo command-keeni taagana waxaanu taabanaynaa Ctrl+9. zoom factor-keena haddaynu yaraano oo zoomteena speed-keedu naga yaraanayaa. tusaale ahaan haddaynu halkan oo kala tagno aynu zoom factor-keena ka dhigano 3 oo kale. zoom factor-keena markaynu 3 ka dhigano enter odhano speedkiisa baa naga yaraanaya. speedkiisa zoomteena aad u yaraanaya. laakiin haddaynu rabno inaynu speedka zoomteena dheeraysiino waxaynu ka dhiganaynaa 80 oo kale. tusaale ahaan marka 80 iyo markuu 3 ahaa isku mid maaha, iminka aad buu noogu dheeraynayaa. laakiin normally waxaynu isticmaalaynaa 60 zoom factor-keena. 60 baan normal isticmaalaynaa. markaynu zoom factor-keena ka gudubno waxa weeye highlight problemkana maxaa waxaa leh highlight problemkana markaynu eegno tusaale ahaan markaad ku shubatid AutoCAD cusub gaar ahaan 2018 iyo 17 aad istiraahdo highlight garayso sidan oo kale kaa noqonaya. sidan oo kale markuu kaa noqdo mar walba si highlight garaysan maysid saxa shay baadan garanayn buu mar walba noqonayaa, shayku aad rabtay aan ahayn. markaa maxaa waxaa leh halkan baad ku qoraysaa pick auto deetana tan baad ka dooranaysaa. markaad taa ka dooratid 3 baad ka dhigaysaa. haddii aad rabtid inaad si sax aan ku noqonnaa 5 baad ka dhiganaysaa iyo wixii ka badan. 3 markaad ka dhigatid iminka sidii saxda aad kugu soo noqonayaa shaykii saxda aad taqaanay. waad highlight garaysan kartaa shay kastoo aad doonaysid. sawirka highlight garaysano haddaynu isla kan kale highlight garaysta kii hore iska kan qaaday maxaa markaa xal halkan baynu ku qoraynaa iminkana pick add markaynu dooranno halkayna baynu ka dhigaynaa. inta sawir aad doontid baad highlight garaysan kartaa. laakiin haddii aad 0 halkaa pick add ka dhigtid hal sawir wax ka badan ma highlight garaysan kartid. hal mar baad highlight garaysan kartaa laakiin laba jeer ma kala highlight garaysan kartid. hal mar labada sawir baad highlight garaysan kartaa laakiin laba jeer oo kala duwan ma awoodid inaad highlight garaysatid. snapping-keena aynu ka dhigano wax aan ahayn 0 maxaa dhacaya. snapping-keena hadaynu ka dhigano tusaale ahaan 8 oo kale maxaa inoo dhacaya. crosshair-keena baan inoo noqonayn si sax aan ugu istaagin oo shape-kiisu isbedelayaa. marka maxaynu ka dhiganaynaa marka crosshair-keenu qaabkaas oo kale inaga noqdo snapping-keenu imanaynaa. snapping-ka markaynu imano ayaan baan halkan ka dhiganaynaa 0 markaan ka dhigano si sax ah baynu noqonayaa. daaqadeena kale aan kusoo noqonay bannaan. daaqadeena bannaan markaan kusoo noqono imika seerka tusaale ahaan way sawiran karnaa. dhib inaguma hayso shaykanu doonaynu sawiran karnaa. laakiin undefined command markaynu eegayno imika haddana ku qorno undefined markaynu qorno aynu kusii qorno circle
enter aynu odhanno circle ma awoodno inaynu sawirano haddaynu isku dayno inaynu circle sawirano ma sawiran karno xitaa haddaynu halkan circle ku qorno inoo soo bixi maayo circle caadiga ahaa okay haddaba saynu usoo ceshanaynaa redefine baynu odhanaynaa redefine markaynu gelinayno enter command namekaynu doonayno inaga xidhnaa baynu gelinaynaa magaciisa circle baynu gelinaynaa inagoo si saxa u gelinayna markaynu circle gelino iminka haddaynu dib ugu noqono waynu sawiran karnaa circle sidoo kale haddaynu halkan circle ku qorno waynu helaynaa circle way inoo soo baxaysaa halkaana markii hore inooga soo baxayn mode maxaa tahay baynu eegaynaa markaynu mode qorano haddaynu tusaalahaan ka dhigano -3 aynu soo sawirta rectangle aynu soo sawirta rectangle cabirkiisu inuu yahay 10 millimeter iyo cafwan aynu soo sawirta rectangle cabirkiisu inuu yahay 10 aynu odhano 10 shapekiisu 10 noo noqon maayo هذا dimensions كيسيك ميجا كرتيو كوما وقرانيا اوكي هذا وين كنا قلنا دين مود ممكن دوم نقولنا إنه إنتر قلنا أنا هالكا من ستريجا 3 تبغى قلنا أنا هذا rectangle صورنا 10 أنا 10 كوما 10 عبر كيسي سحبنا نقولنا هذا نزرنا يا dimension كيسنا وما مقارنة واقعا كانوا إنه هم مقارنين marka aynu isticmaalno -3 oo inoo ah dane mode enter -3 aynu soo connectiisa ku sawira 10 noo ah aynu odhano 10 enter aynu odhano uu ka weynaanaya keenii hore cabirkiisu wuxuu noqonayaa cabir khalada marka cabirka rectangle-kaaga ama line-ka aad sawiraysaa hadduu khalkhal kaaga soo baxo dane mode-kaaga hagaajisanaysaa aad ka dhiganaysaa 3 inta dib u check-garaysid aynu haddaynu keenii 10 ka aynu inoo weeyaan eegano 398 minooy halkaynu keenii marka hore aynu sawiranayno inuu yahay 10 baytan wad mahadsantiin. Assalaamu calaykum.